lugaheedu waa sidoo kale waa naafo marka habeenkina kama seexdo maalintina kama Faadumo Maxamed Cabdi waa gabadh yar oo xanuunsanaysa muddo 8 sano waxaa haleelay xanuun kaga dhacay wajiga kaasoo ku haya xanuun iyo kaaraad u daran lafaha jirkeeda oo dhan waa qalaleen oo waxa u dheer xanuunka naafada hooyo Zainab Axmed Maxamed kama seexato kaarka iyo xanuunka haya Faadumo taasay u dheertay fikir walwal iyo walbahaar waxaan ahay Zainab Axmed Cabdi oo ay ka xanuunsanayso inanta yar bay ka xanuunsanaysaa adigu hadda muddo 8 sano bay ka xanuunsanaysay wadankana waan marmariyay adigu dhakhtarada Soomaaliya waan wada mariyay xamar waan geeyay Soomaaliya inteeda kale waan geeyay Hargeysa waan geeyay Laascaanood magaalada Laascaanood hadda joogo waan geeyay marka adigu dhakhtaradeedii waxba adigu inanta way iga hirgeli waayeen oo sideedii bay u xanuunsanaysaa adigu dabcan markii dambe Itoobiya aan u qaaday aan Soomaaliya waxba kaga garan waayay Itoobiya waxay ugu dhaheen waxa haya irlaj dhiiga raacay bay ugu dhaheen marka dabcan daawooyin bay siiyeen muddo 3 bilood aan ku hayay daawadii waxba kaga ma garan adigu hadda wali wata sideedii marka waxaan doonayaa walaalayaal inanta yar xanuunsanaysan haystaa wadankana waxba laga qaban waayay in inanta yar la soo caawiyo hooyo Zainab waa hooyo dan yar oo waxba haysan Faadumo dhakhaatiir badan oo loo gooyay waxay ku sheegeen in dalkan waxba laga qaban karin hooyo Zainab haatan waxay door bideen shacabka Soomaaliyeed hay'adaha khayrka oo soo bandhigtay gabadha yar ee xanuunsanaysa jeclaa dhakhtar dibadda meel wax laga qaban karo dabcan ilaahay baa wuxuu qaban kara meel wax laga qaban karo marka waxaan jecelahay in la soo caawiyo inanta yar oo sidaa u xanuunsanaysa wajigeedu waa sidaa lafaheedu way xanuunayaan dabcan oo waa naafa ku jirta sidii wax dabayl oo kala marka inanta yar baan haystaa dabcan qarshaado aan meel ugu qaadona ma haysto marka inanta yar waxaan xanuunsanaysan haystaa marka dadka muslimka waxaan doonayaa inanta yarta in la soo caawiyo wixii lagu tari karo lagu taro dhakhtar dibadda baa la jecelahay hadii ilaahay ii suurta geliyo marka inanta yar xanuunsanaysan haystaa haddaba walaal soo caawi si maanta maalin ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caawiyo lambarkaygu waxa weeye 490 lambarkayga golistayna waxa weeye 21 47 89 96